بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. waxaan kusoo jirnay kitaabkii masaa'il aljaahiliya oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa, annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalax alfawsaan. waxaan soo gaarnay masalada 24aad, zuhduhum fi lxaqi idaa kaana calayhi ducafaa. saasuu cunwaan uga dhigay sheekh saalax. nimankan jaahiliyada ah ee islaamkii ka horreeyey waxay maaragtay zuhdi ku samayn jireen xaqa oo aysan danayn jirin, marba haddii dadka xaqa haysta ay yihiin dadkii ay u arkeen inay yihiin dadkii taag daraa oo mujtamaca dabaqadii sarraysay aan ku jirin. marka xaqa waxaa lagu nacayaa dad fuqaro ah aan waxhaysanin yaa xaqii sheeganaya. taasaa xaqii u diida iyaga, marka waa kibir ku jira naftooda dartii. sheekh maxamed wuxuu leeyahy marka almasalatu alraabicatu walcishruun, masalada 24aad, tarku dukhuuli fi lxaqi, in faraha laga qaado in xaqii lasoo galo oo macnaha lasoo islaamo idaa sabaqahum ilayhi ducafaa, haddii kuwii taagta daraa ee ducafada ahaa ay u soo hormaraan xaqi oo ay uga dheereeyaan xaqi iyaga. maxaysaa u yeelayaan marka oo xaqi u diidayaan oo aysan u aqbalaynin? takaburan wa anafatan, waa isla weyni iyo santaag. fa anzala allahu tacaala, markaas alle wuxuu soo dejiyey: walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhahu maa calayka min xisaabihim min shayin wamaa min xisaabika calayhim min shayin fatatrudahum fatakuuna min aldaalimiin. wakadalika fatannaa bacdahum bibacdin liyaquluu ahaulaai mana allahu calayhim min baynina alaysa allahu biaclama bishaakiriin. shiikhu marka aayadaasu soo arooriyey, qeybta hore uu ka sheegay, kadibna wuxuu yidhi alaayaat, yani aqri aayaadka, waa siyaaqaas ku soo arooray. walaa tatrud, yaa alla uu leeyahay, ha ceyrinin oo fadhigaada iyo majliskaada ha ka ceyrinin aladiina yadcuuna rabbahum, kuwa rabbigooda caabudaya, bilghadaati waalcashiyi, subaxdii iyo galabtiiba, yuriiduuna wajhahu, cibaadadaasna waxay ula jeedaan allah dartii, dan kale kama laha, istusus kama aha, allay ugu dhowaanayaan. maa calayka min xisaabihim min shay, ayaga xisaabtoodu adiga kuma saarna. yani haddii wax u qarsoon yihiin aan fiicnayn, allah kula xisaabtamaya. wamaa min xisaabika calayhim min shay, adiga xisaabtaadana iyaga wax kama saarna. fatatrudahum, markaa aada ceyriso ood fadhigaada u diido, oo fatakuuna markaa aada noqoto min aldaalimiina, kuwa daalimiinta aad ka mid noqoto haddii aad sidaa samayso. wakadalika fatannaa bacdahum bibacdina, alla uu leeyahay, saasaan isugu ebtelaynay oo isugu imtixaanay dadkii, koodii waxhaystay iyo kaan waxhaysan iyo waa la isku imtixaanay dadka. liyaquuluu say u yiraahdaan kuwaas waxhaystay oo madaxda ah: ahaa-ulaa'i, ma kuwaasaa mana allahu calayhim min baynina, alla uu ku galladaystay inuu xaqii tusiyo oo ay xaqii raacaan, yani annaga dhexdeenna, yani ma ayagaa la doortay waay macnuhu. markaasaa alla maaragtay radiyo wuxuu yidhi: alaysa allahu biaclama bishaakiriin, ma waanu alle u cilmi badnayn kuwa shukrinaaya oo isaga u mahad celinaya oo u mahadnaqaaya. sheekh saalax wuxuu leeyahay nimankii jaahiliyadu xaqa ayay diidaan buu leeyahay, maadaama xaqii ay haystaan kuwa ducafaa oo dadkii ka mid ah. sidaa darteed waxay yidhaahdeen haa-ulaa'i, yani say ku dhici kartaa waay macnuhu saas, ma kuwaana mana allahu calayhim min baynina, alla uu ku galladaysta ayaga dushooda, yani annaga dhexdeena, yani manalaga doortay, ma kuwaasna nalaga doortay leeyihin. marka waxay ka wadaan jannada nagama mudna, annagaa ka horreynay, annagaa ka sharaf badan, kuwan waa kuwa iska taag daran, qiimo ma leh, qadar iyo maaragtay magac kuma laha bulshada dhexdeeda.
markaasaa alla ku radiyo wuxuu yidhi alaysa allahu biaclama bishaakiriin, waanu alle ku cilmi badnayn kuwa ku shukrinaya isaga. sheikhu marka wuxuu leeyahay alla diinka ma siiyo qof aanu jeclayn, alla diinka ma siiyo qofkuu jecel yahay moogiyo qof kale ma siiyo, laakiin adduunyada wuxuu siiyaa qofkuu doono, ama ha noqdo qof la jecel yahay ama ha noqdo qof cadow ah. adduunyadu marka macno badan ma leh. low kaanat iddunyaa tazinu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa minha kaafiran sharbata maa, yuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam. haddii adduunyadu ay alla agtiisa gaarayso kaneeco garabkeed oo qiimaha adduunyadu uu intaa gaarayo, gaalka biyo ka bashaaba lagama siiyan, saama astaahile. marka waxa macnaha loo siinayo adduunyadii waa inaanay maaragtay alla agtiisa macno badan ka lahayn oo aysan alla agtiisa ku weyneyn. qofkii la siiyeyna maaha qof maaragtay la leeyahay alla agtiisuu sharaf ku leeyahay maaha. xadiidka marka tirmidi iyo ibnu maaje iyo yaa weriyeen iyo rag kaleba. tirmidina wuxuu yidhi waa xadiis saxiix oo qariib min hada alwajh. marka adduunyadu waa ka xaqiran tahay alla agtiisa. haddii ay macno weyn ku fadhiso, dadka uu jecel yahay keliyuu alla siin lahaa adduunyada, gaaladuna waxba kama hesheen. sideedana wuxuu yidhi rasuulka sal slam addunyaa sijnu lmu'min, adduunyadu waaba xabiskii qofka mu'minkaa wa jannatu lkaafiri, iyo gaalka raaxadiisi iyo jannadiisi. muslim baa wariya xadiidka. aayaddan alla wuxuu yidhi faama alinsaanu idaa mabtalaahu rabbuhu faakramahu wanacamahu fayaquulu rabbii akraman. insaankii bani aadamkii haddii la imtixaano oo loo nicmeeyo oo un wax adduunyaa la siiyo, wuxuu leeyay alla ii sharfay aniga, waa la ikaraameeyey. wa amaa idaa mabtalaahu haddii uu imtixaano oo faqadara caleyhi risqahu, risqigii uu ku ciriiriyo, fayaquulu rabbii, wuxuu leeyay rabbigay yaa ahaanani idulleeyey aniga. kalaa, marka arrinku sidaa maaha. qofka risqiga marka haddii loo waasiciyo iyadoo la imtixaanayo, macnaheedu ma aha in alla uu sharfaayo, ee waa imtixaan. sidoo kale haddii qofkii xoolihii lagu yareeyo, ma aha in la yidhaahdo alla maaragta dulleeya qofkaas. arrinku marka sida ay sheegayaan ma ahan, labada dhinac ba ku qaldan yihiin. sababtoo ah alla wuxuu wax siiyaa kuwa uu jecel yahay iyo kuwa uusa jeclaynba. ee waxaa muhima in alla la ateeco, ama hodan aha oo wax hayso, oo marka waxaa laga rabaa inaad alla ugu mahad celiso, ama ku faqiir ahaw midaan wax haysan ahaw. waa inaad sabartaa marka oo dul qaadataa, maaha inaad cibaadada alle iyo jacaylkii alle iyo u adeegidda alle iyo inaad ka go'do maha oo tira may aan wax ma haysto. marka jaahiliyadii hore waxay ku sugnaan jireen dad hadda dariiqoodii oo kale shabahayaa jira, oo markay nicmo helaan waxay ictiqaadinayaan in alla uu raalli ka yahay, oo nicmadii waa ku qooqayaan, markayse dadka xaqirayaan. dadka qaarkoodna markay arkaan in qofkii maaragtay adduunyada xaggeeda dhib ka soo gaarayo, waxay leeyihin qofkaas alla waa necab yahay, oo waxaas loogu sameeyey waa laga aarsanayaa. dadka qaar saas aaminsan. dadka qaarkood marka ay ribada cunaan oo ribo badan ay qaataan oo ay arkaan xoolahoodii oo batay, shaki baa gelaya. waxay leeyihin kaale aw goodigii la sheegayo lalahaa yamxaqullahu riba, alla ribada waa baabiyaa, barakalaan buu ka dhigaa. waxay markaa u malaynayaan in mucaamalada ay ku jiraan aysan ahayn ribo, ay wax iska banaan iska tahay. sababto ah dee barakadii nagama qaadin bay kuleeyihin, xoolo waan haysanaa watana. dadka qaarkood waxaa lagu imtixaanaa, ducadii bay xadgudub ku samaynayaan. ma banaana moogtahay in macsi alla la weydiisto. macsi alla weydiisanaya, markaas la ajiibaya oo dantay lahaayeen helayaan. waxay u malaynayaan marka in camalkooda marka u wanaagsan yahay. waxaasoo dhanna waa fitno iyo imtixaan waay. marka nimankan jaahiliyada ah waxay dhibsanayeen inay xaqi raacaan. sababtuna waa maxay? dadkii taagta daraa ee agteenna ku xaqirnaa yaan nooga hormaray leeyihiin. marka way xaqiiri jireen dadka fuqarada ah. inay la fadhiistaanna waa iska weynaysiin jireen.
iskaba dhaaf inay macnaha ku dabagalaan waxay uga hormareen oo waxay ictiqaadsanaayeen inay fadli walba ayagu xaq u leeyihin inay ku hormaraan. markii rusushu marka ay diin alla xaggiis kala timid oo dadkii raacan ay u bateen kuwa ducafa ah iyo jaahiliyiintii sanka taageen inay rusushii raacaan ama kuwaasaan ka dabagelaynaa ay leeyihin. xaqii marka inay aqbalaan yay iska diideen iyagoo ka baqaaya in haybadoodii ay hoos u dhacdo markii la arko iyagoo dadkii iyaga addoommada u ahaan jiray iyo kuwa hooseeye oo xagga darajada ka hooseeyey iyo iyagoo la fadhiya marka la arko haybadiini baa hoos u dhacaysa isleeyihin. marka aayadan suurat alancaam walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajha sida ay ku tusinayso macnaha maqsuudka waa maxay sababa nusuulkia ku tusinaya. oo sacd ibn abi waqaas yaa waxaa laga wariyey inuu yidhi aayaddani waxay kusoo degtay 6 qofood aniga iyo ibnu mascuudna ka mid baan ahayn buu leey 6daas. mushrikiintuna waxay yidhaahdeen tudnii haaulaa oo kuwan adigu soo dhawaysanaysaa yani kuwan fogey waay si aan kula fadhiisano. riwaayo kalena waxay ahayd oo iyadana muslim u wariyey 6 qof aan ahayn buu leeyahay. markaasa mushrikiintu waxay ku yidhahdeen rasuulka sal ly slam utrud haaulaa yajtaricuuna calayna kuwan maaragtay iska fogee oo cayri haddii kale waa nagu dhiiranayaan bay leeyihin. marka aniga ibnu mascuud iyo nin maaragtay hudayl ka mid ah qoladii hudayleed ka mid ah iyo bilaal iyo 2 nin oo aan magacooda hadda sheegayn buu leeyahay yaan maaragta aan ahayn buu leeyahay. markaasaa rasuulka sal ly slam naftiisii waxaa galay wixii alla doonay inay galaan oo waxbuu naftiisa ugu sheekeeyey. markaas alla wuxuu ku soo dejiyey walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajha ha cayrinin kuwa alla caabudaaya. marka fuqaradii baa laga wadaa moogta subax iyo galabba iyagoo wejiga alla doonaya. waxaa kaloo soo aroortay ibnu mascuud inuu yidhi kooxdii madaxyaweynta ahayd yaa rasuul oo quraysh ahayd kooxdii madaxyaweynta ahayd ee reer quraysheed yaa rasuulka sal ll ly slam soo maray iyadoo uu la jooga rasuulka sal ly slam khabaab ibn alarat iyo suhayb iyo bilaal iyo camaar. markaas waxay yidhaahdeen yaa maxamed aradiita bi haaulaa'i oma kuwaanaad raalli ku noqotay aturiidu an nakuuna tabcan lihaaulaa ma waxaad doonaysaa inaan kuwan anagu kuwa ku daba jira aan noqono gadaashood xaqi soo raaca. markaas alla wuxuu soo dejiyey walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy. imaam axmed baa wariyey iyo ibnu jariir iyo rag kale. aayaddan uu shiikhu soo arooriyey waxay ku tusinaysaa iska reebid la iska reebaayo in mu'miniintii la cayriyo iyadoo marka la maqlaayo warkii kuwii isweynaysiinayay ee ka santaagaya xaqii inay raacaan haddii dad ducafaahu ay uga hormaraan. in marka lagu shabaho waxaas yaa maaragtay iyaduna kusii jirta in la iska reebaayo. marka nusuus fara badan oo maaragtay macnahaas xambaarsan baa jirta. marka khasladaanu ahlu kitaabkana way ku jirtay oo rasuulka sal ly slam ayaa wuxuu ku yidhi cadiy ibni xaatim ile qoladan nasaarada buu raacay ma ogta cadiy ibni xaatim inkastoo carab uu ahaa. rasuulka wuxuu ku yidhi sal ll ly slam amaa inii la aclamu ma aladii yamnacuka min alislaam anugu waan garanayaa buu yidhi waxa islaamka kuu diidaayo. taquul waxaad leedahay inamaa tabicahu dacafatu nnaasi waman laa quwata lah waxaa raacay uun rasuulka muxameda kuwii taagta daraa iyo dadaan xoog lahayn. haddii isagu gadaal dambe soo islaami doonaa. marka hanuunkii rasuulku sal ly slam waa uu khilaafay ahlu jaahiliyada hanuunkoodii oo arrinka waa uu ku khilaafay sababto alla waa ka reebay inuu ahlu iimaanka uu cayriyo kuwa taag daranba ha noqdaane. waxaana la faray inuu maaragtay naftiisa sabar siiyo oo uu la fadhiyo. wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy yuriiduuna wajha. naftaada ku xabis baa la leeyahay la jirka kuwa alla maaragtay caabudaya subax iyo galabba iyagoo wejiga alla doonaya. meel kalena maaragtay indhahaadu yaani u gudbin adoo adduunyada dhaldhalaalkeeda doonaya. marka sidiisaba rasuulka sal slam marka sideedaba rasuulka sal slam wuxuu caddeeyey in kibirku uu yahay bataru lxaqi xaqii oo la iska weynaysiiyo oo la aqbali waayo wa qamtu nnaasi dadkii oo la xaqiro
oo la fududaysto. marka inaan xaqi la aqbalin dadkii ducafada ahaa baa naga hormaray darteed kibirkaasay soo gelaysaa. sababto xaqi baad diidaysaa, waad celinaysaa, dadkii ducafada ahaana oo taagta daraana waad xaqiraysaa. jannadana kolley axaadiistu waxay tusinaysaa in maaragtay dadka ducafada iyo masaakiinta ay u badan yihiin. ahlu naarkana dadka isweynaysiiyo kibirka badan oo ad adag oo aan wax la bixin oo iskibriya inay u badan yihiin naarti. masalada 25aad sheekh saalix wuxuu cunwaan uga dhigay alistidlaalu calaa kowni shayi baatilan bisabqi ducafaa'i ilayh. in loo soo daliilsado wax inay baatil yihiin dadkii taag daraayo u hormaray darteed. marka masalada 25aad sheikhu wuxuu leeyahay sheekh maxamed alistidlaalu calaa butlaanihi, xaqi inuu baatil yahay waxaa loo soo daliilsanayaa jaahiliyadu macnaha saasay samaynaysaa bisabqi ducafaa'i, dadkii taagta daraa yaa u hormaray leeyihin xaqi. ka qowlihi sida alle uu yiri low kaana khayran maa sabaquuna ilayh. yani dadkii muminiinta waxay ku taagnaayeen waxay leeyihiin war waxa ay haystaan hadday khayr yihiin noogama hormareen, sababtoo annagaa ka gobsan bay leeyihiin, annagaa dadkii magaca lahaa ah, annagaa dadkii laandheeraha ahaa ah. say ku dhici kartaa in maarata kuwaas ay nooga hormaraan xaqi? inaanu xaq ahayn bay markaa tusinaysaa bay leeyihin, maadaama kuwaas ducafada ay u hormareen. sheekh fawsaan wuxuu leeyahay caadaadka ahlujaahiliyada waxaa ka mid ah in loo soo daliilsado wixii inay baatil yihiin dadkii taagta daraayo u hormaray darteed. low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi bay leeyihiin. yani annagu dad wax yaqaana baan nahay, dad khibrale baan nahay, dadkii fakeraayo waa annagaa wax kala naqaana. markaan aragnay waxaan uu maxamed la yimid inaanu xaq ahayn yaan isaga tagna bay yidhaahdeen. hadduu xaq yahay annagaa u horumari lahayn. ka tegidda aan iska tagnay iyo iska dhaafidda aan iska dhaafnay waxay daliil u tahay inaanu xaqba ahayn, saasay leeyihin. sheikhu marka wuxuu leeyahay taasi hadda marka waa wax aada baatil u ah. maxaa yeelay xaqa raacitaankiisu kuma koobna dad gaara oo raaca, ee xaqa raacitaankiisu waa gallad alla uu ku galladaysto qofkii uu doono addoomihiisa ka mid a oo uu waafajiyo marka xaqaas inuu raaco. rususha dadka raacana caadadu waxay tahay inay badanaa yihiinba dadka taagta daran. ile reer nebi nuux waa kuwuu yidhi anuuminu laka watabacaka alardaluun, oo miyaan ku rumaynaynaa iyadoo ay ku raaceen kuwii maaragtay mujtamaca ku liitay dhexdiisa. sidoo kale alla wuxuu ka sheegay qowm nuux inay yidhaahdeen wamaa naraaka itabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'yi. mana u jeedna bay yidhaahdeen inay ku raaceen waxaan ahayn kuwii maaragtay hooseeyey. yani waxay ka wadaan sida hadda ay salafka qaarkood ku fasireen kuwa mathalan kabatalayaasha iyo ah ama dharka iyo ka shaqeeya way xaqiiri jireen mihnadaha ma ogta. yani meheradaha lagu shaqaystay xaqiiri jireen iyagoo marka aan ka fiirsanin. dad marka yani feker fiican lamaahay leeyihiin. sidaa darteed raacidda ay ku raaceen waxay tusinaysaa in waxaan ay xaq aanay xaq ahayn. laakiin waxay leeyihin annagaa dadkii fekerka u saaxiibka ahaa ah, annagaa dadkii caqliga u saaxiibka ahaa ah. haddii marka waxaan uu nuux la yimid ay xaq yihiin waxaa raaci lahaa dadka ahlu ra'yiga ah iyo madaxyaweynta ummadda ka mid ah. marka madaxweyntii markii ay ka tageen xaqi raaciddiisii taas waxay tusinaysaa inaanu xaq ahayn. warkooda marka waa baatil. sababta sida qaalibka oo caadaduba ay ku daraarsato waxa waaye in dadka xaqa ku gaaloobaa ay yihiin kuwa loo nicmeeyey ee wax haysta. saasaaba caadadu u badanta. sida alla uu yidhi wamaa arsalnaa fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun. tuulo kama aanan soo dhex saarin middiga oo rasuul ah ilaa haddii laga soo dhex saaro kuwii loo nicmeeyey ee barwaaqada ku dhex jiray waxay dhihi jireen innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun. rusulay wixii adinka laydinla soo diray waan ku gaalownay. marka xaqa dadka raaca waxaa u badan kuwa ducafada ah oo taagta daran iyo fuqarada, sababtoo ah isla weyni kuma jirto ayaga. marka in loo soo daliilsado wixii inay xaq yihiin raacitaanka kuwa lacagta haysta ah inay raacaan
ama kuwa madaxda sharafta leh ay raacaan loona soo daliilsado wixii inay baatil yihiin raacitaanka kuwa dacafada ay raaceen darteed waa miisaan ay ahlu jaahiliyadu wax ku miisaamaan. mana banaana in miisaan laga dhigto lagu miisaamo xaqi iyo baatilka in la kala garto. sidaa darteeda culammadu waxay yidhaahdaan alxaqu laa yucrafu biاlrijaali wa inamaa yucrafu alrijaalu bilxaqi. xaqii laguma garto raggaas intaad fiirisid inaad tiraa khalaas xaqu ayagaa unbuu maaragtay la wareegaa oo kaman dhex bixi karo maaha inaad tiraahdo. haddaanay ahayn hadda dad alla uu fadilay sida saxaabada rasuulka oo kale sal ll ly slam. ilaa saxaabada rasuulka sal ly slam xaqu kama dhex baxo ayaga. yani ma dhici karto in xaq gafay saxaabadii oo iyagii oo dhan ay waayeen dad kale la siiyo, ma dhici karto. xaqii oo dhan waa ay wada haysteen iyagu. wa inamaa yucrafu arijaalu bilxaqi. rag iyo waxaa lagu gartaa xaqi baa lagu gartaa. bal horta xaqa garo. markaad xaqa garato ayaad raggii garanaysaa, sida cali bn abi taalib laga wariyey. marka salafkii qaarkood markii aayaddii uu sheekh maxamed soo arooriyey oo low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi ay ka hadlaayeen, waxay yidhahdeen sida qataada oo kale dad mushrikiintii ka mid ah yaa waxay yidhaahdeen annagu dadkii sharafta lahaa baan nahay oo idinka sharaf badan nahay, saasii saas baan nahay. falow kaana khayran maa sabaqanaa ilayhi fulaanun wa fulaanun. haddii waxaan ay khayr yihiin hebel iyo hebel noogama hormareen. markaas aayaddu soo degtay sida ibnu jariir iyo keyrkiisba ay wariyeen. markay leeyihin low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi, yani islaamkani haddii khayr uu ku jiro, yani sida loo soo daliilsanaya aayaddaas waxay tahay, aayaddii sheekh maxamed uu soo arooriyo low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi waxay tahay inay inkireen nimankaas jaahiliyada ahi in islaamkaba uu khayr ku jiro. sababta u inkirayaan waa maxay? kuwii taagta daraa yaa u horumaray bay leeyihiin. taasaan ku garannay inuu baatil yahay. waxaa kaloo la sheegay sida maarata ibnulmundir uu wariyey in aayaddani ay ku soo degtay addoon uu lahaa cumar ibnu khataab oo soo islaamtay. waxaa la dhihi jiray zinniira la dhihi jiray. markaasaa cumar uu garaaci jiray. maxaad u islaamaysaa buu leeyahay. markaasaa gaaladii qoraysheed waxay dhihi jireen low kaana khayran maa sabaqatnaa ilayhi zinniira. haddii diinkan uu sax yahay, yani zinniira oo addoontii cumara noogama hormarteen islaamkan. laakiin ibnu jariir wuxuu u iishay isagu inay kusoo degto aayaddu reer bani israa'iil ay kusoo degtay oo waxay ceebayn jireen dadka nebi maxamed rumeeya. oo maxay leeyihiin? oo maxaa u daliila marka in reer bani israa'iil laga wado? waxaa ka horreysa aayaddan qul ara'aytum in kaana min cindi illahi wakafartum bihi washahida shaahidu min bani israa'iila calaa mithlihi faamana wastakbartum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin. mana isdiidayso in reer bani israa'iil gaaladoodii ay warkaa ku hadlaan, kufaartii qoraysheedna ay warkaa ku hadlaan, oo aayaddu ay markaa soo degto iyadoo labada qolaba radinaysa. marka hanuunkii rasuulku sal ly slm waa uu khilaafay hanuunkii ahli jaahiliyada ah. oo rasuulku sal alla ly slama wuxuu qiimo u yeelay, wuxuu khilaafay hanuunkii rasuulku sal ly slama hanuunkii ahlu jaahiliyada. oo rasuulku sal ly slama qiimo gaara umaba yeelinba taag darradii iyo xooggii, oo kama aanu dhigin wax xaqii lagu garto ama baatilkii lagu garto. xaqii laguma garto rag ee raggii baa xaqii lagu gartaa. markaad xaqi garato yaad raggii xaqa haystana garanaysaa. wuxuu yidhi rasuulku sal ly slm xadiidka muslim uu wariyey inahu layaأti arajulu asamiinu alcadiimu yowma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda. waxaa imaanaya maalinka qiyaamo nin buuran oo hilib badan oo joog weyn oo alla agtiisana miisaankiisu aanu gaaraynin baalka kaneecada. macnaha qiimo ma leh. mar horena waxaan soo sheegnay in ahlu naarka ay u badan yihiin dadka isweynaysiiya oo kibirka badan, ahlu jannaduna ay u badan yihiin dadka ducafada ah. teeda kale alla qofkuu doonu naxariistiisa ku gaar yeela, waana fadli alla uu leeyo qofkuu doono uu siiyo. fadliga allana waa mid fadligiisu u weyn yahay. marka in la yidhaahdo dadkii taagta daraa oo horumaridii ay wax u hormaraan waxay ku tusinaysaa waxaasi inay baatil yihiin, oo xaqii saas lagu beeniyo way kasoo horjeedaa nusuustaasaan soo sheegnay. casrigan hadda la joogana wax noocaas oo kalea weli waa baaqi.
wabillahi towfiiq.